وحقون بح إخوان الصدقة عجائب هذا وحكمده هو مركز مقشد نفط هذا وحي دمع عيسى وحك صدها شيئنا بحس وحقيقة وين مضنتها قفك وحو صدقيسته وحك بدن با إلهي ugu bedela $1 hadaad bixiso kumanaan $1 ba Ilaahay kugu bedela xaqiiqo way waxa daliil u ah Aisha radhiyallahu anha gabadha muslimka bal dhageyso waa ummul mu'miniin waa qofka aad rabto ayadoo kale inaad noqoto oo jannada la gasho ma kamid ah ayadoo sooman oo gurigeeda ay yaalaan 2 xabo oo khubus ah waa 2 xabo oo canjeela ama chapati ama rooti oo taqaanaan ayaa miskiin ba guriga ku soo garaacay gabar khaadimadoo la joogtay bay albaabka uu fur waayo way furtay si taa miskiin si taxabad si hal bay siisay xoogaa kadib baa qof kale oo miskiin soo garaacay si taa waayo si taa miskiin kale si taxabadka kale si yaa ummul mu'miniin maalin walba waxaad haysato intaad bixiso yaa hadhowna waxaad weedaa waxaad ku afuraysaa si taa adu iska daayay si xabadkii bay qaada way siisay xoogaa kadib ayaa qof kale albaabka soo gargaraacay bal fiiri ma miskiin kala hadii miskiin kala maxaa siin oo saddexaad albaabka taagan gabadhii baa albaabka furtay waxaa taagan nin adoon ah oo wuxuu wadaa dabaq saxan weyn oo neef ari ah waxaa dul saaran hilibkiisa la shiilay barbecue anagu naqaana sagdan la solay oo rooti dusha ka saaran yahay tiro badan markaasuu wuxuu yiri ehelkayga reerkayga baa waxay ugu dhaheen ummul mu'miniina ugeeha ku afurtay waa hadiyad markii gabadhi ay soo qaaday Aisha intii qasashay waxay tiri cun waa khubzun khayru min khubziki waa khubz ka khayr badan khubzkaaga iyo cun ilaahay agtiisu keen ilaahay waa soo diray tabaaraka wa taala fadlka fiir bil ajiba wa Aisha labaday haysatay bay bixisay intaas oo rooti ay hilib loogu bedelay hadaa dhibaato ku haysato ama faqri ku hayo ama waxyaalaan ku haysato Aisha ku day wax haysatay bixi wax ka badan ba ilaahay ku seen waxyaabaha صدقة سميسة وحكمدة ومسألة عن إسلامي والله ما أنت ضد بدن مسلمين هؤلاء داووا مرضاكم بالصدقة قف كجرن صدقة كداوية ولقى حديث كالنبي إنتان بقشة صلى الله عليه وسلم أصوى قف كجرن هاي ما أقصد إنها كداويس الصدقة سيد النبي صلى الله عليه وسلم وحاد علي إمام الحاكم أبو عبد الله الحاكم قصوين كان شيء أنت بدن قف كهربا وحكى أخرسان كرا كتاب له من عجائب الصدقة وعجيبة والصدقة شيء عجيب وغشاكيني عبد الله يعني إمام أبو عبد الله الحاكم أيها جفلي وجهه وحكى صباح الباغ مركز بتاع اختار بوتلي وحكى السوسمي ده هو اللواعي ما لها كاملة أسوي الدرس أخرني وجهه طعامي والشيخ دباته كهيسته أيها وحا أركي وحصاد قال مساجد أبو عثمان الصابوني ودرس كأخرني شيخ عقيدة عانك كوها كتب كعقيدة هي فرق بدع إن الله رضي الله مركو صاد قال وحيري إمام أبو عثمان الصابوني وحيري ادعي إمام أبو عبد الله الحاكم إنه إلهي عافية تذكر وحيد إلهي عافية أصور الصبح يدن درس حديث شيخ أخرني أيها وراق وهرتي صلى الله عليه وسلم وراق ذي وفري وحكو قرن قبر بقى وحيد إسلام مسلمنا حالي بقى وحنكر رياض النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كأرك عجيب مكاسو النبي وحيويري وحاد كتر هذا أبو عبد الله الحاكم وحاد كل هذا يوسع الماء للمسلمين مسلمين بيها صدقيست شيخ الدرس يجيبوا دمية مركو دمية أيوه كعي قريس الدرب يسوي حققضي بركد انتوني من حمالياله ويالي بيا الله وشوي درس كيبا كعبي والله تدوبري كدب بوغيه وي دمادين وي بابين عجيب وي ما انت قفك مسلم waxaa haysta kansar waxaa haysta xanuun waxaa haysta dhiikar waxaa ku haya xanuun kasta diabetic sonkor baa ku haysa xanuun kasta ku haya xanuun ma ku haya xadiidka nabiga intaad aaminti daawo mardaakum bisadaqa bal fiiriba sadaqa baxso bixi ilaahay isagoo daaweeyay baad arki doontaa way dhacday marar badan way dhacday qisooyin xadiid ah baa dhacay oo hadda waqtigan la joogaa waxaa dhacday qiso cajiib ah laba cunug oo yar yar oo walaalaha ciyaaraya ayaa mid kamida dhigta isha waxa ka galay qori waxba ku jabay isha way dhacaamaysaa waxba ku jira dhaqaatiirtii loo geeyay oo dhan way ka baqeen isha meesha madow way dhakhtarkaas wuxuu leeyahay cajiib ma taaban karo waa khatar ishaan haddaan taabto isha wuu beelayaa cunug
hooyadii way iska oyday way dhibaatootay cunugii ma seexan karo indhihii biyaa ka da'aya maalintii dambe waxay maqashay nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidkiisa daa'u mardaakum bisadaqa ma nabigaa yidhi sallallahu alayhi wasallam arrinkaa waa inaan fiiriyo sadaqay bixisay sadaqa weyn bay bixisay waxay tiri usbuucii dambe cunugii baan check up dhakhtar geeyey dhakhtar baa wuxuu igu yidhi bay tiri bal anaa ku nasiibsanayo cunugaan baroobeynaya inaan qabo markaasuu markuu wisitaynayay ayuu ishii saas u taataabtay wixii oo cadba furduq ka soo yidhi bannaanka ku soo dhacay allahu akbar markaasuu dhakhtarkii wuxuu yidhi wixii way soo baxeen gabadhii waxaa qalbigeeda ku jirta daawu mardaakum bisadaqa nabiga sallallahu alayhi wasallam cajiib weeye ka faa'iidayso akhi jiraa ku haysta dhib baa ku haysta meel kale ha aadin waa caafimaad nabiguna baray sallallahu alayhi wasallam waa caafimaad cibaado ah ka faa'iidayso isku day samee waad ku caafimaadsa insha allahu tacaala haddaad ku caafimaadi weydid xoogaa iimaankaagaa hooseeye eh intaad iimaanka xoojiso ood aamintid xadiidka nebiga samee waad ku daawoobaysaa xaqiiqo wey arrinkaas arrin kaloo cajiib ah oo sadaqadu leedahay waxaa weeye arrinkaasi sadaqadu waxay celisaa balaayooyinka iyo musiibooyinka maanta musiibooyin baa dhacaya badan carruurta musiibaa ku dhici baabuur baa kula gadoomi jirkaa kugu dhici masaa'ib baa soo degi dukaan baa guban reer baa isfuri oo isdagaali qof baa waxaa ku dhacaya jiro deg dega musiibooyinkaa tirada badan ee dhacaya waxaa ilaahay ku difaacaa sadaqada waxyaabaa yaab kale waxaa ka mida moxamed ibnu wadaax raximahullah waa nin culimmadii hore oo muslimiinta caanka ayd ka mida ayaa maalin maalmaha ka mida isagoo darsi xadiida akrinaya oo fadhiya ayaa waxaa u soo galay nin orday markaasuu wuxuu ku yidhi cunugaagii yaraa ayaa waxaa ku dhacday taayir baa beer lagu falayey beerta taayirada waaweyn oo loo jido oo lagu falayo ayaa ku duldhacay sheekhii wuu fikiray wuu aamusay xoogaa wiilkii ardayga ah kitaabka akrinaya wuxuu yidhi wad darsiga sii wad wiilka darsiguu iska waday sheekhu iska aamusay waxba ma dhihin qof haddii la yidhi ilmahaagii baa balaayo ku dhacday oon kicin oon isbedelin oon qiiroonin oo aan ooyin oon nixin ka war darsigii markii uu xoogaa socday ayaa nin kale ordayaa soo galay markaasuu wuxuu yidhi abshir bishaarayso moxamed ibnu wadaaxow wiilkaagii taayirkii waan ka kicinay waxba ma gaarin maradiisii unbuu la haray maradii unbaa ku dhegtay taayirkii xabad wiilkii ma gaarin ninkii sheekhiyaa wuxuu yidhi awalaan yaabayey awal ayaan yaabanaa saaka waxaan arkay buu yidhi wiilkaa yarka ah oo albaabka maskiin soo gargaraacay xabado khubus oo rooti ah siinaya markaad hadda idhahdeen buu yidhi dhibaataa ku dhacday waxaa isu kay qaban weyday saakuu sadaqa baxsaday haddana musiibaa ku dhacday arrinka asalkuna wuxuu ahaa asadaqatu tadfacu albalaaya sadaqadu balaayooyinkay celisaa marka wuxuu waa isu kay qaban weyday laakiin waan fahansanaa inaan wax ku dhacayno qofkaas iimaankaa fiir akhi haddaad sadaqa baxsato ood maanta wax sadaqaysato musiiba kuma dhacaysa dhibaata kuma taabanayso ma ku daraa qiso kale insha allahu tacaala waxaad moodaa qisooyinka aad bay u badan yahay qiso kale idinku daraya oo cajiiba waxaan rabaa qofka muslimkaa inuu bal dareemo fadliga ay sadaqadu leedahoon daawo ka raadin kitaabka min cajaa'ib sadaqa sheekh ayaa wuxuu qoray wuxuu yihi anoo meel nin macalimiinta ka mid oon ku kalsoonaa wuxuu ii sheegay buyi anoo meel taagan baabuurta laga raaco ayaa wuxuu yihi waxaa ii yimid cunug yaroo ordaya oo miskiin ah markaasuu yaa cam adeerow waxaad isiisaa 10 riyaal 5 riyaal wax un isi aan khubus ku gato maxaad ku gadanaysaa shawaarmaan ku gadanaya 5 riyaal baa intaan soo bixiyaan siiyey 5 riyaal baa intuu aad u farxay buu la orday buu wuxuu ku galay biyo makhaayad buu galay wuxuu anoo cunugii weli ka fakeray cunugii maskaxiisu ku jira ayaa wuxuu yihi waxaan anigii 4 kale yaa baabuur taxi asla kiraysanay wadamada muslimiin taxi waa la soo sheer garaya markaan xoogaa soconay ninkii taxiilaha baa i caayay nin adiga nin xun baa tahay adoo kale ma qaaday iga deg taxiga nin aniga maxaad iga rabtaa nin khabiis baa tahay nin xun baa tahay waa isdagaalay waxaan iri waayo lacagteeda ii celi waa kaa harayaa lacagtii wuu ii soo celiyey waan soo qaatay waa soo lugeeyey meeshaan taxiga ka soo raacnay baan nimi anagu wuxuu xanaaqsan oo isdejinayaan meeshii imid baabuur kale aan soo raacay wallaahi wuxuu yidhi markaan xoogaa kadib soconnay ayaa waxaan u nimid baabuurkii oo intuu gadoomay oo uu gubtay 4 nin iyo darawalkii 5 ku dhinteen waxaan fahmay buu yidhi sadaqadaydii baa iga soo saartay iga reebtay musiibadaas akhi waxaad xasuusataa maanta waxbaad sadaqaysanaysaa aduu ma ogid
waxaa dhici karta shil baabuur inaad kaga badbaadi musiibo carruurta inaad kaga badbaadi jirro xun inaad kaga badbaadi dukaankaa oo guban lahaa inaad kaga badbaadid waa security way waxaan hadda la yidhahdaa life insuransiga oo la geli dadku galaan way waa insurance way waxaad noqonaysaa qof ilaahay uu xifdiyey waxaan kusoo khatimayaa kelimadan hadduu qofku wax haysto ama uu xili karo oo wixii uu ku bakhaylo ilaan sadaqada maalka ilaahay baa bixiya ilaahayna dadka uu gacantooda geliya wuu imtixaamaya dadku qaar baa lacag haysta mid baa wax yar haysta mid baa wax badan haysta qof walba waxaa rabaa wuxuu haysta wax la-eg inuu bixiyo hadduu bixin waaya maxaa dhacaysa waxaa dhacaysa inta lagaa qaado ayaa mid kale oo bixinaya la siinaya ilahi wuxuu yidhi wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum uma laa yakunu amhaalakum haddaad jeedsataan ilaahay wuxuu idinku bedelan qolo idinka fiican oo idinka oo kale aan ahaanayn oo idinka fiican qisaan ku xasuusinaya nin ayaa gabar aroosay hameenkii ugu horreysay arooska ayagoo casho dhigtay oo aad u faraxsan waa hameenkii la yidhaahdo innagu waxaan dhahnaa gabdho waxay dhahaan caawa hameenkaygii oo hameenkii aad ku lahayd nolosha wey oo faraxsan ayaa albaabka la miskiin kusoo gargaraacay gabadhii baa xagga albaabka xigta way istaagtay oo waxay tiri waa ay suuye qof miskiin oo tuugsanaya way wax siiya markaasay tiri waa miskiin tuugsanaya suuye baxdhe cayri saacadaan oo kale iyo albaabada laisku soo garaaca marqaankiiba ilowsiyey iyo farxaddii wax walba gabadhi waxay tiri aniga orod naga tag wax ma ku siinayna bax naga tag ninka guriga lahaa wuxuu kii soco bax ninkii waa iska tegay isagoo aad u niyad jabsan waxaa muddo kadib ninkii xaaskiisa waa iskhilaafeen muddo laisqabay waa la iskhilaafay waa la isdagaalay reerkii waa burburay ninkii naagta waa kala tagay waa isfureen ninkii buufis baa ku dhacay wuu waashay magaaladu iska galay isagoo waalan isagoo tuugsanaya oo ninkii waalan gabadhii intay ciddadii ka baxday oo iska joogtay baa nin kalaa guursaday gabadhii iyo ninkeedii dambe oo hameen isla cashaynayo guri fadhiya ayaa albaabka lagu soo gargaraacay hameen barkii say way istaagtay way soo noqotay waxay tii waa nin miskiin oo tuugsanaya markaasuu yidhi maasha allah ma miskiin baa caawa noo yimid ma ilaahay baaba dadkii naga soo doortay ilaahay baa nagu soo aadiyey cuntadaan sii lacag buu soo bixi lacagtaana ugu dar maxaan kuu qabaa naad u baahan tahay dheh nin miskiinka waxaa la siiyey raashinkii iyo lacagtii isagoo faraxsan markuu jeedsaday ayaa gabadhii waxaa la rabaa inay farxdo soo maa iyadoo ilmaynaysa bay soo laabatay ninkii wuu fiiriye wuxuu ku yidhi maxaad la ilmaynaysaa walaalay kugu dhacod la ooyeysaa markaase waxay tidhi waxaan la ooyayaa ninka miskiinka albaabka taagnaa waa ninkii hore oo iqabi jiray fiir waa ninkii hore oo iqabi jiray waxaana ilaahay ku ciqaabay yaan u malaynayaa hameen baa isaga oo saan oo kale ila cashaynaya ayaa miskiin albaabka soo garaacay markaasuu si xun ula hadlay ninkii waan isfuray wuuna waashay miskiinkiina hameenka si xun buu u cayriyey ninkii qabay gabadha ayaa ooyay isaguna wuu ilmeeyey markaasay tii adigana maxaa kugu dhacay si waxaan la ooyayaa ninka hameenkaas tuugsanayo albaabka gargaraacayay anigu ahaa fiir kanaa reerka qabay sadaqadii buu diiday maalkiibuu ku bakhaylay waa la waalay reerkiibuu ka tegey mid kale oo sadaqaysta kii baa yaa fiicnaaday oo wax helay oo degay ilaahay dejiyey naagti baa ilaahay u guuriyey wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum uma laa yakunu amhaalakum akhi ukhti walaalka muslimkaa gabadha muslimadda ah haddii maanta ilaahay shilin ku siiyey oo ilaahay wax ku siiyey oo aada shaqaysatid oo aad wax heli kartid waxaa jira dad badan oo baahan oo masaakiina waxaa jira hadda masaajidda way baahan yihiin dadkii ehelku way baahan yihiin meel walba baahi baa ka jirta wax sadaqayso sadaqana waxaa ugu fadli badan midda la siiyo sadaqa jaariya ku sadaqayso wax kastoo awoodi baxso insha allahu tacaala ilahay waxaan ka rajaynayaa inuu aniga iyo idinka sadaqadana jeclaysiiyo ilaahayna sadaqadaa baxsanay inuu ilaahay usan naga dayicin wixii kurba iyo dhibna haysana ilahay inuu nagaga faydo wasala allahuma calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi wasalm